محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاريخ مانتي أي تهي سداد يتوانكي بشي أفراد لبكون يسقال يتوان والصحافات كصوب حي وسارد وحبر الشدة تعليم تسرع الدولة بنتلان والصحافات كصو خصية هذا الشري كصو يري وزيرك وزارة وحبر الشدة تعليم تسرع حلبان عبد الله قاضح بره ربع وزارة وحبر الشدة تعليم تسرع بنتلان يضو كدوليسة nuxurka shirkii jaraa'id ee ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya federaalka ee Soomaaliya mudane xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre waxa halkan ku soo gudbinaysa jawaabta la xiriirta mowqifka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay ku ilaalinayso mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed ee Puntland nidaamka imtixaanaadka ee Puntland nidaamka imtixaanaadka Puntland waa mid ku qotoma adeeg daadajin una ogolaanaya in bulshadu si mug leh uga qayb qaadato si ay u lahaansho u dareento nidaamkaasi waa mid adag kuna salaysan siyaasad manhaj qorshe iyo qaanuun iyo qiimeyn imtixaankaas waxa hogaamisa wasaaradda waxbarashada iyo hidaha wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee Puntland laga soo bilaabo 2003 ilaa maanta oo uu midaysan yahay imtixaankaasi wuxuuna ku taagan yahay taageerada kala duwan ee laga helo bulshada dawladda qurba joogta iyo qaran bixiyaasha oo inta ugu yar bixiya hadeer heshiisyada dhexmaray labada wasaaradood ka hor inta aanan u galgelin nuxurka jawaabta waxaan halkan ku soo muujinaynaa heshiisyadii dhexmaray labada wasaaradood ee heer dawlad federaal ee wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland heshiiska koowaad wuxuu ahaa heshiiskii dhexmaray labada wasaaradood ee ku taariikhaysnaa July 9keedii 2017 heshiiskaas oo ay kala saxiixdeen wasiirkii ka horeeyay wasiir Goodax wasiir Cabdiraxmaan iyo wasiir Abshir aw Yuusuf heshiiskaas oo qorayay nidaamka dawladnimo muxuu ahaa lagu heshiinayo waxbarasho inay Puntland gooni u lahaato waxbarashada imtixaanka manhajka inta laga gaarayo nidaam la wada leeyahay iyo siyaasadda la wada leeyahay nuxurkooda heshiiskii hore u dhexmaray labada dhinac ee kala ah ra'iisul wasaarihii Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee Puntland kuna taariikhaysnaa October 14keedii 2014 ra'iisul wasaare Cabdulwali Sheekh iyo madaxweyne Cabdulla Cali Gaas heshiiska ay kala saxiixdeen kaasoo dhigayay Puntland in shahaadadeeda la aqoonsado waxbarashadeedana ay u madax banaan tahay inta nidaam la wada leeyahay iyo manhaj la wada leeyahay system la wada leeyahay ay imaanayso heshiiska saddexaad wuxuu ahaa heshiiskii hore dhexmaray labada dhinac ee kala ahaa saxiixayaasha ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee Puntland kuna taariikhaysnaa March 12keedii 2013 xilligaas oo madaxweyne ka ahaa dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole iyo ra'iisul wasaarihii markaa xilligaa joogay Saacid Shirdoon heshiiskaas oo isaguna dhigayay habka deeqaha waxbarasho in Puntland qoondadeeda la siiyo 2025 maadaama imtixaankeeda iyo manhajkeeda uu ku fadhiyo nidaam cadaali ah oo system soo jiray ilaa dhowr 10 sano shaqeynaya markaa ahaa in lagu siiyo nidaamkaas waxbarashadeeda iyo aqoonteeda lagu kobciyo shahaadadeedana ay ahaato mid la aqoonsan yahay oo jaamacadaha laga hirgasho heshiiskii ugu horeeyay ee waxbarasho la kala saxiixdo wuxuu dhacay 2009kii 23 Agost buu dhacay waxaana kala saxiixday ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Faroole heshiiskaas oo isaguna sheegay qoondada waxbarashada deeqaha waxbarasho ee la helo iyo hanaanka waxbarasho Puntland inuu yahay mid lagu tashan karo ee la gaari karo heshiisyadan aan kor ku soo xusay dhamaantood oo ku saabsan madax banaanida arrimaha la xiriira manhajka imtixaanka shahaadada iyo deeqaha waxbarasho dhamaantood waxay heshiisyadan qirayaan in aan kula heshiinay dawladda federaalka wasaaradda waxbarashada in aan u madax banaanahay manhajka imtixaanka iyo deeqaha waxbarashada aan u helo ardada waxbarashada maadaama aan soo shaqeynay 20 sano oo khibrad u lahayn iyo aqoon u lahayn iyagana aan uga faa'iidino ayaa markaas la ogolaan heshiiskii ugu dambeeyay oo dhacay 2017 haddaba maxay tahay sababaha Puntland aysan uga aqbalin karin imtixaanka in imtixaankan la galo oo uu leeyahay Goodax la galo wasiirku leeyahay sababta ay Puntland ku diiday maxay tahay uu leeyahay Puntland waa diiday koow la'aanta siyaasad iyo sharci waxbarasho oo midaysan
ma jiro Soomaaliya ilaa hadda siyaasad iyo sharci midaysan oo waxbarasho oo lagu wada shaqeeyo oo ka dhaxeeya nidaamka heer federaal iyo heer dawlad goboleed kala duwanaanshaha manhajka sida muqarrarka maadooyinka saacadaha xiisadaha iyo anagu maadooyinka aan dhigno dugsiga sare ay ardaydu ku qaataan iyo maadooyinka ay dhigaan way kala duwan yihiin sharciga iyo muxuu ahaa manhajka iyo muqarrarka aan dhigno way kala duwan yihiin sida aligeed isuuma iman karo imtixaan inaan wada gallo hal mar ammaanka imtixaanaadka dawladda dhexe ay dejiso oo aan sugnayn lana isku halayn karin taasoo macnaheedu yahay ama cadeymaheeda loo hayaa uu yahay in imtixaanka uu gacanta u galo sanad walba ardayda facebookida laga arkaa annaguna waxaan qaadnay imtixaan 15 sano 16 sano soo qaadinay oo maalinna aan eed iyo dhibaato iyo cid gooni aysan gacanta ku dhiginin baan qaadnay yaraanta khibradda iyo xirfadaha lama huraanka u ah dadka dejinaya imtixaanka ama maamulaya ama saxaya ama sugidda tayada imtixaankaas oo iyaduna caqabad kale ah oo aan si guud loo gali karin imtixaankaas tayada imtixaanaadka ay qaado dawladda dhexe oo ka hooseeya heerkii loo baahnaa annaga standardka imtixaanka aan ku qaadno waa standard caalami ah weey 10 sano ka hor 6 sano ka hor ayaa noogu dambeysay cid annaga naga caawiso imtixaanka qaadistiisa dejintiisa iyo sixitaankiisa iyagana maanta ayaa loo bilaabay inay hay'adaha caalamiga ah imtixaanka la dejiyaan la qaadaan la saxaan sida la aligeed tayada imtixaanka aan hadda anagu qaadnay waa mid ka sareeya standardka hadda iyagu ay qaadaan taasna iyadana nagu soo gelinayso inaan ardayda dib ugu soo celino oo imtixaanka la galaan gunaanadkii waxa muhiimad ah in la xoojiyo wada shaqaynta iskaashiga labada dhinac isla mar ahaan taasna la ilaaliyo midnimada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ubadka oo ah kuwa sida tooska ah ay u saameynayso go'aamada la xiriira waxbarashada sida kale waxay wasaaradda door bidaysaa in wada shaqaynta iyo wada xaajoodyada labada dhinac ay ku saleysnaadaan mabaadi'da aasaasiga ah sida istixgelinta wadaniyadda midnimada ilaalinta maslaxadda iyo mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed sidaas oo ku cad heshiisyada labada wasaaradood ay kala saxiideen July 9keedii 2017 taas oo aan haddaba kadib shirkii jaraa'id ee uu wasiir Goodax shalay ka sii daayay warbaahinta ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland waxay go'aamisay qodobadan hoos ku xusan kow in la ilaaliyo dastuurka federaalka ah oo qeexaya heerka awoodaha ay kala leeyihiin dawladda federaalka ah iyo dawladda xubnaha ka ah nidaamka federaalka in Puntland ay meel mariso shahaadada dugsiga sare isla markaasna ay horay uga soo dhaqamaysay in badan in waalidiinta iyo ardayda reer Puntland ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare u damaanad qaadayso inaysan wax walwal ah ka qabin shahaadada iyo deeqaha waxbarasho ee ay horay u heli jireen taasoo aanu si buuxda ugu sheegayno in ardaydu mar walba ay ahaayeen kuwa ku tashada deegaankooda iyo dawladooda